ولذلك الإمام مسلم في صحيحه وحكوري عائشة رضي الله عنها وحيتري جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها وحايتي متقبر مسكينة أو وحبان هيسن أو لبقب دولو يري وضته مركاسي باهبا هيسن المي سوك عايزة عائشة ولتمت عائشة رضي الله عنها وحيتري waxaan siiyay saddex xabo oo timir ayaan siiyay waxa ay u heshaa waxay noqdeen saddex xabo oo timir ah ma ahan cantoobo ma ahan shan xabo ma ahan 10 xabo saddex xabo ayaan u helay oo aan siiyay bayt fa'atat kull waahidatin minhuma tamra baahida haysa daraadeed labadii ilmood oo yar yarka ahaa mid kasto kamid ah xabad bay siisay ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها حبضي صدحاتنا وحي دمعدي إني عنتو كربي وقاضي هو يدي وي فاستطعمها ابنتاها لبدي قبضوت أيا لبدو دي حبا انتي عنين هو يؤعن ولي عنين حبد دي أيا ويديستين إني سيسو كدقي فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما حبدي أي دوني سيني عنته يضعس أي اللبدو دي مسنوك للقويسي أو اللبدو دي أي سيسا أيضنا أي كقط فأعجبني شأنها بيت عائشة رضي الله عنها وحآدي عجب قلي أرنتي ده يضعس إيا النحريستي ده iyo daqnashada ku jirta ayaan aad iyo aad ula cajabeeyay ayadoo baahan ayay xabadiina u kala goys markaas ay nabiga u sheegtay Aisha radiyallahu anha oo ay tiri haweentaas maanta sidaas guriga timid xaaladeeduna sidaas ay ahayd markaas nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wassalaam qad awjaba Allah laha bihima aljanna labada gabdhood sababtood ayaa ilaahay naar ugu janno ugu waajibiyay inay janno ilaahay ay gasho aw a'taqaha bihima min an-nar wa shakum min ar-rawi ilaahay ama wuxuu ugu xoreeyay labada gabdhood sababtood ayaa ilaahay naar ugu xoreeyay intaas naxariista ah oo ilmahaas baahan ay u daqnatay ayaa ilaahay janno ugu waajibiyay subhanahu wa ta'ala بهائمتا يا حيوانك إن لو نحريستو أو وحويان لو تروح جنة إلهي بالغوه لا سبحانه وتعالى والنبي يقول عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فريسة مساجد كفريسة مساجد نينك أصعد فريسة كفريسة مساجد حلي أو صعدين وضد أمرها ينين صعدال أيا وحا قدر ناضي النبي يقول عليه الصلاة والسلام أنكي وقدر ناضي أيوها الراضي فوجد بئرا فنزل فشرب ثم خرج عيل أيوها لي عيل كيبو قدها أقلي بيهيبو كعبي مركو كوب حين واكب حي فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ماشي وحابة تاغن عيلك بنان كيساها اي با تاغن اي قاسنا وحو عنيا عيدو عنيا هراد ايو اون دراديس ايو عيد الله عنيا مرقاسا ننكي حطلي مرقاسا يقول لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي والله إلهي بان كدارت ايغان وحاق تابتي اونك حقي سي هرادك وحي أنيق إيهايستي بأساقنا هايستا وأضغنضي وحو النبي يقول فنزل البئر فملأ خفة عيل كيبو انتو كل لابتي أيو وحو سبوحي خفكي أيو سبوحي خفك وحويان مقار وحكا سميسان سيدا سيجيسان توكلاء فأمسك فيه خفك أفكيس أيو انتو قبطي أيو كرع لصوبحي فسقى الكلب ايجيبو بنانكا ugu shubaya maanta oo dhan biyaha yarka meel ugu dul shubahaya ila eegi uu waraabiyay oo uu dharciyay wuxuu nabigu yiri alayhi salatu wassalam fa shakara Allah lahu fa ghafara lahu ilaahay ba ku shukriyay qofkii sidaas sameeyay ilaahayna subhanahu wa ta'ala wa u dambi dhaafay
dembigiisiina ilaahay waa dhaafay waana ku shukriya ilaahay subxaanahu wa tacaala bahaa'imta oo loo naxariisto dadka masaakiinta oo loo turo oo la caawiyo oo la taageero waxaa lagu helaa wax la helo waxa ugu qaalisan waa janno ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dembi dhaaf uu ka horeeyo ilaahay inuu kuu dembi dhaafo jannana uu ku geeyo wax la raadiyo waxa ugu qaalisan weeye bahaa'imta iyo masaakiinta iyo ilmaha yaryarka iyo agoommaha waxaa lagu raadsadaa janno qofkii ilaahay wax uu siiyey oo dhaama waa inuu xasuusnaadaa mar walba uu masaakiinta u naxariista waxaa ilaahay ku tilmaamay saxaabada nebiga sala allahu calayh wasalam inay ahaadeen dad naxariis badan gaalada ku kakan oo ku ad adag dhexdoodana isku naxariista ilaahay wuxuu yidhi muxamedun rasuulu llah waaladiina macahu ashiddaa'u cala alkufaar ruxamaa'u baynahum gaalada way ku ad adag yihiin dhexdoodana waa dad isku naxariisto isku tura weeye waxa aan loo naxariisanahay waa gaalada xarbiyiinta ah gaalka dagaalamaya oo muslimiinta la dagaalamaya asaga waa la dilayaa midka murtadka oo diinta islaamka ka ridooba muslimka ahaa asaga waa la dilayaa midka taariku salaadka asaga la waraabin mahayo salaada ilaahay ka tegey xayawaanka mu'diga ah oo waxa weeyaan in la dilo la is-amray asaga waa la dilayaa waxba la waraabimayo waa la dilayaa xayawaanka la amray in loo naxariisto iyo khalqiga intiisa kale bahaa'imta kale iyo dadka intaba waa in qofku u naxariistaa oo u turaa raxmaddu laba nuuc weeye mid waxa weeyaan qofkaaba ilaahay ku abuuray oo dadka ayaaba kala duwanba qof baa ilaahay wuxuu ku abuuray qalbigiisu inuu daqnado oo naxariisto qofna qalbigiisu waxa weeyaan daqnasho iyo naxariis ma leh middaasi waa abuuris ilaahay baa ku abuuray raxmaddaas qalbigiisa taalla qofkan waa fadiilo ilaahay uu siiyey midna waa muktasab oo qofku wuu kasbanayaa oo qofku waa inuu ogaadaa adillada ku soo aroorta in khalqiga loo naxariisto iyo turitaanka xayawaanka loo turahayo iyo ixsaanka loo samaynayo masaakiinta fadaa'isha ka dhalanaysa markuu ogaado haddii xataa qalbigiisu markii hore uusan daqnasho lahayn waa inuu naftiisa ku tarabiyeeyaa oo isbaraa inuu waxa weeyaan u naxariisto masaakiinta inuu u naxariisto bishaan barakaysan ee inoogu soo socota waxyaalaha lagu soo dhoweeyo waaweyn waxaa ka mid ahoo wanaagsan qofku inuu sadaqo sii bixiyo inuu masaakiinta u naxariisto si ilaahay subxaanahu wa tacaala umuurihiisa ugu fududeeyo si ilaahay ugu naxariisto si ilaahay jannadiisa ugu helo waa inuu qofku khalqiga ilaahay u naxariistaa waxaa lagu raadiyaa caafimaad masaakiinta oo loo naxariista waxaa lagu raadiyaa caafimaad waxaa lagu raadiyaa janno waxaa lagu raadiyaa dembi dhaaf waxaa lagu raadiyaa ilaahay ummadda inuu madar iyo khayr uu siiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u naxariisto waa ka nebigu yidhi irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa u naxariista kuwa dhulka jooga ilaahay baa subxaanahu wa tacaala idiin naxariisanahaya alraaximuuna yarxamuhum araxmaan kuwa naxariista ilaahay baa u naxariisanaya bal u naxariista khalqiga ilaahay oo jarrib oo isbar oo waxa weeyaan ka warqab dariskaaga qaraabadaada saaxiibbadaada dadka duruufaysan masaakiinta waa in loo naxariistaa si ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoogu naxariisto waa inuu ogaadaa qofka mu'minkaa raxmadda ilaahay shay kasta inay ka waasic tahay waa ka ilaahay odhanaya waraxmatii wasicat kulla shay raxmadda ilaahay uu khalqigiisa asagu u naxariisanahayo waxay ka weynin badan tahay hooyadu ilmaha ay dhashay sida ay ugu daqnanayso oo ugu naxariisanayso ayaa midda ilaahay ka weynin badan tahay walidaalika imaamu albukhaari iyo muslim waxay wariyeen cumar ibnu alkhadaab radia allaahu canh ayaa wuxuu yidhi nebiga waxaa loo keenay maxaabiistii laga soo qabtay reer hawaasin dadkii la soo qabtay
oo addoommada ahaa oo faraha badnaa oo la keenay ayaa waxaa ka mid ahaa haweeney markaas waxa weeyaan ilmo yar ku irmaanayd ilmihii yarka ahaana weysay naasaheediina caanihii ay ku soo istaageen markaasay waxay dhex ordaysaa dadkii faraha badnaa ayay waxay ka raadinaysaa ilmo ay nuujiso cunugii yaroo ay aragtaba way nuujinaysaa ilaa markii dambe ilmaheedii ay heshay markaasay ku booday oo dhabta saartay markay sidaa dhabta u saartayna naaskay u daysay nebigu markuu arkay sala allahu calayhi wasalam hooyada intaa ordaysay oo cunugeedii raadinaysay markay heshana sidaa iskugu duubtay oo ku dhegtay ayuu saxaabada su'aal weydiiyo oo wuxuu yidhi aturawna haadihi taarixatan waladaha fi nnaar ma u malaynaysaani middaan ilmaha yarka ah oo sidaa ay u baadigoobaysay oo naaska hadda ay u daynayso dhabta ay ku hayso intay saa u qabata dab inay ku dhex tuuri lahayd ma u malaynaysaan markaasaa waxaa nidhi buu yidhi cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu maya wax ka suurtoobi kara ma ahan markaasaa nebigu intuu dhaartay buu wuxuu yidhi allaahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladiha lafdiga kale lallaahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladiha ilaahay baa addoommadiisa oga naxariis badan hooyadaas aad arkaysaan ee sidaa waxa weeye ilmaha yarka u daqnanaysa oo sidaa ugu naxariisanaysa ilaahay baa addoommadiisa oga naxariis badan qofka muslimkaahi waa inuu ogaadaa raxmadda ilaahay waxaa la yeelay 100 qaybood ayaa ilaahay ka dhigay wuxuu nebigu yidhi calayhi الصalaaةu wasalaam jacala allaahu الraxmata fii 100 juzءin raxmadda ilaahay wuxuu yeelay 100 qaybood faamsaka cindahu 99 juz'a ilaahay agtiisa wuxuu ku baaqi yeelay oo haystaa 99 waأnzala fi اlardi juz'an waaxida hal qaybna waxaa loo soo dejiyey dhulka ayaa la keenay 99kaas waxaa loogu naxariisanayaa aakhiro ahlu jannaha hal midna adduunkaa la keenay bal middaasi raxmaddaas keligeed ah sida ay waasicu tahay wuxuu nebigu yidhi famin dalika aljuz'i tataraaxamu alkhalqu halkaa qayb oo keli ah ayaa khalqigoo dhan isugu naxariisanayaan xataa tarfaca alfarasu xaafirahaa can waladiha khashyata an tusiibah ilaa farasku qoobkiisa uu ka ilaaliyo ilmaha yarkaah oo uu dhalay oo hoos yaalla ayuu qoobkiisa ka ilaalinayaa baqid uu ka baqahayo qoobka hadduu ku joojiyo inuu dilo uu ka baqahayo halkii xabbo ayaa raxmaddiisu waxay gaartay in waxa weeyaan xayawaanku ilmaha yarkaa uu dhalay uu u naxariisto oo qoobka ka ilaaliyo inuu ku dul joojiyo waxaa kaloo muhima in la ogaado qofka muslimka ah uma bannaana inuu marnaba raxmadda ilaahay ka quusto oo waxa weeyaan dembi kastoo ka dhaca waa inuunan raxmadda ilaahay marnaba ka quusan wuxuu ilaahay leeyahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuur اraxiim addoommadayda xadgudbow ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina ilaahay dembiyada dhammaantood waa dhaafaa waana gafuur raxiim qofka dembi kastoo ka dhaca hadduu ilaahay u laabto subxaanahu wa tacaala laa shaka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u dhaafaya asbaabihii toobadkeenka hadduu la yimaado dembigaasi si kasta ha u weynaado ilaahay wuu dhaafaya qof nimcadaas ilaahay oo raxmaddaas dhaafitaanka ah qof waxa weeyaan loo diidahayo oo laga ilaalinayana ma jirto walidaalika nebiga calayhi الصalaaةu wasalaam
nin reer baadiya ayaa salaada la tukaday markaasuu salaada markuu ducaysanayo wuxuu ku soo daray allaahumma arxamnii wa muxammadan walaa tarxam macana axadan ilaahow aniga ii naxariiso muxammadna u naxariiso cid kalena ilaahu ha u naxariisan markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam laqad xajarta waasican raxmad ilaahay iyo dembi dhaaf ilaahay oo waasica ayaad ku koobtay adiga naftaada iyo aniga naftayda raxmad ilaahay iyo dhaafitaanka ilaahay waa waasic ummadoo dhan inaad u ducaysid bay ahayd ma ahayn inaad ku koobtid adiga iyo aniga maynan ahayn raxmadda loo naxariista khalqiga waxaa ugu sii fadli badan dadka ducafada ah oo tabarta daran ilmaha yaryarka ah bahaa'imta iyo xayawaanka masaakiinta ayaa aad iyo aad ugu sii fadli badan